wiilwaal oo ahaa nin looga haray ammaanduulka iyo maamulka dagaaladu ma degdegsana ma uu rabo in lagu hambooriyo dagaal aanu hubin inuu ku guulaysan doono weli ciidankii uu bariga ka sugaayay ma soo gaarin ha yeeshee wuu soo dhow yahayoo siigadii fardahooda ayaa warmihii wada qarisay siduu baaqu ahaa hal maalin socod oo keliya ayuu u soo jiraa maalintii dambe ayaa waxaa la soo gaaray gaasaskii reer bariga subaxdii uu galabteeda filaayey barqa dheer markay noqotay ayuu midhacsaday gaalguray iyo raggii uu goobta soo dhoobay oo ka muuqda meel uu si wacan uga arki karo isaga oo faraskiisii ku jooga ayuu hor taagan yahay ciidankiisii oo ay suuragal tahay inuu mar walba soo duuliyo garaadkuna wuxuu rabaa inuu ku baajiyo haddiiba tashi caynkaasi uu ku jiro dabadeedna isaga oo keligiisa ayuu u xawaariyey boqorka gaaluhu kobtii uu colkiisa ku hortaagnaa wuxuu ku joogaa weyrax oo ahaa baxdowgii lagu yaqiin ee fardihii xilligaa la haystay ugu orodka dheeraa tashiga uu ku socdaana wuxuu yahay si uu yeelaba inuu dib u dhigo dagaalka kafoolka ah ee labada ciidan ay fooda isku dari doonaan wuxuu diidayaa iska hor imaadka weyni inuu dhaco iyada oo aan weli la gaarin dharaarta gelinkeeda dambe oo ah marka uu filaayo in gurmadka bari uu soo gaari doono muxuu kolka yeelay sawgaalguray inuu sii maaweeliye ma aha muxuuse ku maaweeliyey sidee buu u asadihiyey goobtii muddada dheer la isu diyaarinayeyse sidee buu ugu adkaaday sidee bay jigjigi ugu gacan gashay maxayse ahayd tixdii gabay ee garaadku uu taariikhda goobta ah ku waariyey dhegaystayaal markii isugu keen dambaysay sheekadu waatay inoo maraysay colkii wiilwaal iyo kii gaalguray oo banka jigjiga isku hor fadhiya labada mid walba taladiisa ayaa u dhooban labada mid waliba wuxuu rabaa ceelka jigjiga iyo carsinta looga soo arooraba inuu isagu u haro boqorka gaaluhu waa diyaaroo waxba dhulka kama yaalaan waa nin mar alla markuu doono colkiisa dagaalgelin kara hase ahaatee garaadku isagu halkaa ma joogo waa laga ciidan badnaaye waatuu soomaalidii bariga inta ergada u dirsaday loogu ballan qaaday in rag iyo fardaba loo soo diri doono welise wax ma soo gaarin sidaa darteed waxaa ka go'an dirirta weyne inaysan dhicin iyada oo aan la gaarin garabnimada iyo goorta uu filaayo gurmadkii bari inuu u iman doono kolka isagu lama gudboona inuu helo tab uu dib ugu dhigi karo dagaalka kafoolka ah ee labada ciidan intay birta iska aslaan uu midba kan kale dhiiggiisa uu ku faraxlan doono wuxuu wax maamiyo oo maskaxda tuujiyaba wiilwaal tabtii ugu helay markaas buu isaga oo aan cidnaba la tashan faraskiisii weyrax ku jooga raggiisiina aan mid qurana ka wadan wuxuu u xawaareeyey colkii gaaluhu kobtii uu ku urursanaa meel la isaga tanaagoon karo kolkuu u soo jirsaday ayuu inta faraskii hojiyey boqor gaalguray wuxuu ku yidhi waxaa tahay boqor dagaalyahana oo la wada yaqaan aniguna waxaan ahay garaad isaguna dagaalyahana oo magaciisu dheeraaday kolka waxa ila quman iyada oo aan ninba ninka kala dilayn inaynu labadeenna col tusno sida uu midkeen waliba ugu fogaaday tabaha dirirta iyo farda ku dagaalanka ka hor inta aanay labada ciidan fooda isdarin gaalguray oo aan rabin in fulaynimo lagu maleeyo ayaa taladii wiilwaal halhaleel u oggolaaday isaga oo raaciyey waan yeelay hase ahaatee ma adigaa dhoolatuska bilaabaya mase aniga wiilwaal oo ay hubaal tahay in tashi cusubi ku soo kordhay ayaa ku jawaabay baranku aragnee adigu ku horree markaas baa iyada oo aan ereg kale la isdhaafsan waxay labadii ciidan dareemeen guray oo sida aad libaax baabushii u kiciyey isla markiiba wuxuu ciribta ku dhuftay faraskii uu ku soo dagaal tegey suu inta booday buu cirka galay markaasoo ay daawatadu mooday kob dhulka iyo hawada u dhexaysa in cabbaar lagu hakiyey haddana bankii ayuu ku sii daayey marna dhirta iyo boholaha ayuu ka dul bootiyaa marna si kadis ah ayuu u hojiyaa mar kale neefkii oo aad u xawaareynaya ayuu inta dhabarkiisa ka soo meero bogga isaga dhajiyaa in yar kadibna intuu labada lugood ciidda la helo dushiisii ku noqdaa kiyo aan orodkiisii inaba wax ka dhimin mar kale warmihiisa midkood ayuu kor u ganaa markaas buu intaanu dhulka kaga dhicin meel dhexe ka qabsadaa
mar kale geedaha midkood ayuu waranka ku halgaadaa qaybta birta ah oo idil intuu jiridda kaga xabaaro ayuu haddana xoog kagala soo baxaa isaga oo weli ku jooga faraskii oo sidii u xawaaraynaya labadii dhinacba intii maantaa wada daawanaysay ayuu ashqaraar iyo afkalaqaad ku riday sidii haddaba lagu ballamay tirtirfadkii lala yaabay ee gaalguray waxaa lagu xijiyey kuwa wiilwaal soo bandhigay oo noqday mid ka daranoo lala amankaagay daawatadii iyo labadii colba wuxuu u muujiyey tabaha fardaha dushooda iyo hubkaba loogu dagaalamo tabahaasoo ahaa qaar ay bulshada horay u tiqiin iyo kuwo cusuboo maantaa ka horow aan cidina arag intii uu dhoolatuska ku jiray oo dhan wuxuu wiilwaal kolba jeedaalinayay halkii uu colkiisu tuuraa ujeeddadiisu waxay ahayd dhoolatuskiisa inuu ku sii wado oo banka ballaaran uu kolba dhinac u cararo tan iyo inta guutooyinkii uu sugaayey ay ciidankiisa ku soo biirayaan taasina sidii uu rabay ayay u dhacday markii la wada arkay fardihii reer bariga siigadoodii oo mar keliya cirkii iyo dhulkii kala qarisay sow xoog hor lihi kolkaana kuma soo kordhin dabadeed ciidankii gaalluhu halkuu tuuraa intuu isha ku xaday ayuu weyrax cagta u rogay xawli la yaab leh ayuu ku gaaray goobtii uu ammaanduurahoodu dhoolatuskiisa ka daawanayay markaas baa waxaa la isweydiiyey muxuu ka doonayaa meesha uu ciidanka cadowgu dhooban yahay muxuu talow maagan yahay cidina lama oga wuxuuse rabaa inuu ballankii ka baxo oo dagaalweynaha ka horba uu boqorka gaallaha dhegta dhiigga u daro gaalguray tashiga caynkaasa maba soo rogin xawaaraha wiilwaalna wuxuu u haystaa inuu qayb ka yahay tirtirfadkii ay isku ogaayeen dabadeedna isaga oo sidaa isaga baraadla ayuu ku war helay hooto duuddheerta qaybteeda hoose kaga dheggan iyo isla markiiba waran isna hardaad ku haleelay oo xudunta bartankeeda kaga taagan kaas baa inta xidmihii calooshiisa harakeeyey cadcad u rogay oo haddana dhabarkiisii ka kuday sow kolkaana cid walbaba uma caddaan mar aan dheerayn inuu dadka aakhiro ku beeri doono hase ahaatee intii aanu faraskii ka duulin ayuu gaalguray istiilayoo labadiisii waran midkood gacanta bidix la helay wiilwaal oo meel aan ka fogeyn ka muuqda ayuu ku tuuray isna gaashaankii uu bidixda ku haystay intuu isaga dhigay ayuu hadheed isaga dalfiyey sidaana kaga badbaaday dharaartaasna waxaa sidaa ku ahaaday ka sabaan dagaalyahankii ay gaalluhu hasha ku maalayeen garaadkuna markuu hubsaday boqorkii gaallaha inay naftii daysay ayuu marada u taagay ciidankiisii iyo kuwii soo xoojiyey ee gurmadka ugu yimid markaasba iyagiina lug iyo farasba sidii gamuunna fallaara laga ganay u soo gulfeen oo haddiiba bankii qof iyo siiga ka dhigeen wakhti iskama ay lumine si degdega ayay birta ugu boobeen guutooyin idiloo maantaa ka hor geesinimo lagu kuunyi jiray asiirjoo horadii dhigay kadib halyeygoodii markuu wiilwaal ku hamuun tirtay haddii dirirtaa laga joogo ayuu wiilwaal faanayoo gabyaana wuu ahaaye wuxuu tiriyey tixuu isku ammaanay goobtaana uu ku taariikheeyey waa gabayga ugu caansan maansada tirada yar ee garaadka naga soo gaadhay wuxuu yidhi xalay gelindhexaadkii miyaan gogasha soo laabay gurxanka iyo gooraanka iyo goohi iga yeedhay hanqargeeda laaya ah miyaa laabta iga guuxay ogaadeen gal duur iyo hadduu webi ka soo gaasay meeshiiyo gar loo gubay hadduu garowgu eedaamay guntadayey haddaan khaylidii labada naas geeyey asaan weyrax nadigii gashay u'gucu ma aad yeeshay gaalladii ka goor iyo ka goor fiibi nagu goysay guray maalintaan dilay colkeed inuu go'aan sheegtay golyaay maalintaan idhi darkii inay gashaan sheegtay meeshaan ka geylamay dadkii inuu go'aan sheegtay garbidaan ku tiirsaday rag inuu garab maraan sheegtay geeraarsho dheer iyo dagaal warangalaan sheegtay gacan iyo in geed laga hadliyo gobonnimaan sheegtay waxay ahayd guusha fudud ee aanu filanayn dharaartii uu wiilwaal goobtaa kala laabtay waa dharaartii uu isagu gashaday baalkii dheeraa ee guyaasha badan
gaalguray uu madaxa ku sidan jiray. waa dharaartii maalintii xigtay qorraxdii oo aan weli dhicin ay loodii bartidhaceelkii soo wada gashay, iyadoo uu u hor cabbay sacii golye la odhan jiray ee caaradka ahaa, garaadkuna uu lo'diisa ugu jeclaa. waxay ahayd Jigjiga iyo agagaarkeeda dharaartii uu geesigaasi soomaalida u soo gacan geliyey, halkaasoo si ay ku joogaanba ay weli ku dhaqan yihiin.